dagaal kan Soomaaliya process buu soo maray darajuu soo maray mar waxa ahayd magaalada power struggle oo markii USC ay doonayeen dadka wada qabsato haddana la warlords baa sameysmay haddana maxkamadaha sameysmay ka bacdi dawladda waxa la sameeyay ku meel gaara imanka face kale qabsato waxa markii la yiri waxa la sameeyay dawladda goboleedo oo laba road mapkii distorka lagu qortay labadii gobol iyo wixii ka badan ba state bay noqonayaan wax boob dhuleed baa dhacay dhulkii beeraha la isku leenaya marka waxa la yiri miskiin baa garba la fushalay marka stateski baa sameysmaya marka dhulkii baa marka yaa laga qaadaya dhulkii waxa laga qaadaya dadkii labadoodu dhexdooda degi jiray digli iyo mirflaha iyo dirka ku aleeyaa qolooyinkaas ah dhulkoodii la boobaya marka Jubaland ba ka soo dhaxbaxaysa Hiiranland ba ka soo baxaysa Banaadir ba ka soo baxaysa marka dagaalada hadda socda nasiib dara ah ee marka dhacaya Shabeelle hoose ilaa maanta xitaa number 50 bay qabsadeen qolooyin magaalada reer Mudug ay qabsadeen reer Hiiraan reer Badaweyne magaalada ka baxalay ayay xasuuqeen oo marka ay joogtaa erga joogtaa marka waxaan weeyna nasiib daro waxa weeye Amison ciidamada imka ay sameynayso waxay basic noqonayaan ciidamada reeray noqonayaan beel qura u badnaanaya kuwa direeskii xiranaya dhulkii beeraha lahaa reerahoodii ayay marka ay u boobiyaan Amison waxaan leenahay ciidamada Djibouti jooga Hiiraan waxaan leenahay in laga daayo tababarkan la siinayo ciidamada leeyahay ciidamada Somali National Army Somali National Army beela u badayeen kuwa Hiiraan laga qoray beel bay u badnaanayaan kuwa laga qoray xamar beel bay u badnaanayaan wata keentay inta ciidamadii xamar joogay inay number 50 ku duulaan inta reer ahaan isku socdaan wata keentay inay ku Hiiraan joogay inta beel ahaan isku socdaan inay dadka beeraleyda ee boomaan oo intaas guri ka baabay oo dhirta jarjaraan oo masaajidka gubaan yani wax ka dhacay jiina soo ba ka kacday meesha ka xalan leeyahay marka waxa weey meeshan Soomaaliya la yiraahdo waa magac dad ba abuuranaya gaala inta magacan sameysay ku meel gaarku ay ka baxday ku leeyihiin kama bixin wax iska bedelay ma jiro dana ay leeyihiin shidaalka ay marka Ingiriisku qaato kale bado kale ayaa kama waxyaalo loo magacaabay marka aniga waxay la tahay halkaas khayr kama soo jeedo dagaal cusub waxa sayaab leh hadda wadada dhawaadana waa la igu kicmeel badan baa la iga kicin waxa yaab leh Faisal Ali Waraabe in uu ka qaylinayo wax ka dhacay marka bal ii sheega wadan baan goostuu leeyahay markaasuu marka ummad Soomaaliyeed dhibaato isgaarsi Soomaali ma bali waa ninkii dhahay wiilka aad isku dhashay iyo wiilka Muqdisho ku dhashay kan aad isku dhashay xiga war aad isbaan ku leenahay ka dhaxbax ummadda Soomaalida ee jecel ummadu way iskhilaaftaa war ummadi markay degan tahay way iskhilaaftaa khilaafkuna waa caadi lama wada dhalataa iskhilaafta dabkaad shidaysiin waan garanaynaa dabkaad shidaysiin Faisal Ali Waraabe dabka uu shidahayo waan garanaynaa ujeedadeedu waxa weeye wadankan hagaagay ee lugihiisa ku istaagi raba ee ciidamadeena ay ku socdaan in uu qalqal galiya ee qabiil dagaal qabiil uu ku dhex abuuro ee uu fogeeyo dagaal qabiil inuu galiyo way ayuu rabaa waxaan leenahay markaad soo noqotid Faisal Ali Waraabe waxaan leenahay markaad soo noqotid ee dirtid inaad Soomaali tahay ka hadal dad Soomaaliyeed wax isyeelay laakiin Soomaali adaa kala gooyay adaana kala fogeeyay hanala sheeganin haddii kale ka dhaxba haddii kale soo noqon leenahay